kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo maanta idinkaga imaanaya xafiiska TV-ga Universal ee magaalada Gaalkacyo. barnaamijkan waxaanu ku eegi doonaa tacadiyada inta badan loo geysto wariyaasha, kana waxaanu kaga hadli doonaa dilkii naxdinta lahaa Allah u naxariistee wariye Cali Axmed Cabdi oo dhawaan lagu dilay magaalada Gaalkacyo. labadii bishan ayay ahayd goortii magaalada Gaalkacyo lagu dilay eeba u naxariistee wariye Cali Axmed Cabdi isagoo ku socda gurigiisa oo ku yaala bartanka magaalada Gaalkacyo. nasiib darro qadar adigu 5 daqiiqo kadib waxaana loo soo sheegay inuu dhintay. waxaana dadkii ugu horeeyay oo aada meeshii dilku ka dhacay aniga iyo nin kale aan ahayn anagoo aad u dheeraynayno oo xataa aan garan karin meesha aan marayno iyo meesha aan u soconno baan gaarnay meeshii dilku ka dhacay. wiil anigu aan dhalay oo ilmahayga aan aad ugu jeclaay oo dhintay in Allah ka dhigay cali sidaan uga naxay qof bil aadan oo aan uga naxay ma jirto ilaahay hadda markii magaciisa la soo qaadana waxaan soo xasuusanayaa cali oo hadba horteeda imaanaya ka aan fariisan jirnay oo aan ka shaahay jirnay gabadha iskala waxay ii sheegtay oo aanan cali ka maqal waxay tiri cali oo fikirsan baa waxa uu soo fariistay meherada waan su'aalay cali say wax ka yihiin wuxuu igu yiri bay tiri runtii inaan dhiman doono ayaan u malaynayaa sababtoo ah waan isfahmi laahay aad baan isu fahmi laahay buu igu yiri bay tiri runtii cali habeenkaa ka hor shaki. wariye Cali Axmed Cabdi waxa uu ahaa wariye muddo ku jiray saxaafadda gobolka Mudug kana shaqeeyay xarumo warbaahin oo kala duwan inta uu ku jiray saxaafadda. Allah u naxariistee wariye Cali Axmed Cabdi waxaa dilkiisa geystay 2 nin oo ku hubaysnaa bastoolado sida ay sheegeen dad ka ag dhawaa goobta lagu dilay marxuumka. eeba u naxariistee wariye Cali Axmed Cabdi waxaa lagu dilay meel gurigiisa u jirta 50 mitir saldhigga dhexe magaalada Gaalkacyana u jirta ku dhawaad 200 mitir. wariye Cali Axmed Cabdi waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho, waxa uu ku barbaaray magaalooyinka Beledweyne iyo Gaalkacyo. ahaan wuxuu jiray 22 sano. waxa uu shaqooyin saxaafadeed ka soo qabtay xarumo warbaahin oo ay ka mid yihiin idaacadaha Radio Gaalkacyo, Radio Danjir oo ku taala waqooyiga Ameerika iyo website-yada Mareeg iyo Puntland. waxa uu ahaa nin dabeecad furfuran, bashaash ah, jecel xirfadda saxaafadda iyo inuu ugu shaqeeyo dhanka samaanta. waxa uu aad u jeclaa inuu ilaaliyo mihnada iyo xirfadda saxaafadda. waxa uu ka qayb qaatay barnaamijyo wadaninimo ah oo iskaa wax u qabso ah. wuxuu cali jeclaa inuu ka qayb qaato hawlaha horumarineed ee iskaa wax u qabsaa ee ka jira gobolka, haddii uu ku taageeri karo maskax ahaan, haddii uu ku taageeri karo muruq ahaan iyo haddii uu ku taageeri karo wixii tala ah. waan soo wada shaqaynay muddo fara badan. muddadii uu joogay Radio Gaalkacyo ilaa uu ka gaaray heer sare shaqada oo madax shaqo iyo shaqaale xataa uu wada gaaray. raggii la soo shaqeeyay oo madaxda qaarna uu ahaa, qaarna wada shaqeeyaan waa joogaan. sidoo kale waqtiyadii ugu dambeysay wuxuu ku jiray olole xoogan ugu jiray sidii gobolka Mudug magaaladiisa Gaalkacyo uu uga hirgelin lahaa ama qayb uga qaadi lahaa TV cusub oo uu yeesho magaalada Gaalkacyo. in aad u feejigan baha dabcan xaaladda lagu jiro iyo aad ula jaan qaada oo feejigan inkastoo qadartu iska qoran tahay haddana aad buu feejignaa. wuxuu uga sheekeeyay habeenka subaxa ay arkayaan habeenkeedii khatarta uu galay iyo waxa uu la kulmay. dabcan niman 2 nin ayaa iraad raacda ayuu yiri. dabcan ilaa aan gurigii ka galayna igamaysan harin. dabcan anigu waxaan u qaatay inay yihiinba nimankii dilkiisa ka dambeeyay Ilaahay ku sabay. Allah naxariisto mar labaad. nin fiican buu ahaa, nin dabci fiican buu ahaa, nin wanaag jecel buu ahaa, nin qaba hami saxaafadeed inuu ummadda si daacada hufnaan leh dhexdhexaadnimo leh inuu ugu shaqeeyo jecel buu ahaa. ilaahay jannadii firdowso ha geeyay waxaa lagu aasay magaalada Gaalkacyo. intaa waxaa ku dhan barnaamijkii arrimaha bulshada oo idinkaga imaanaya magaalada Gaalkacyo xafiiska TV-ga Universal. haddana dib aan idinkugu celiyo stuudiyaha koowaad ee TV-ga Universal iyo Cabdi Xaafid Maxamuud. Cabdi Xaafid.